qarax ayaa lala eegtay gaari ay saarnaayeen ciidamada harmacad ee ilaaliya shaqaalaha Turkiga oo qaraxaasi oo ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho. waxaa faahfaahinta warkaasi noo haysa Raxma Maxamed. ugu yaraan 5 askari ayaa ku dhaawacantay kadib markii qarax lala eegtay gaari ay saarnaayeen deegaanka Carbiska ee degmada Afgooye. ciidamada lala beegsaday qaraxa ayaa kamid ahaa askarta ilaalada gaarka ee shaqaalaha iyo injineerada Turkida ah ee dhisay wadada xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye. weerar ismaadaamin ay waliba kuwa qaraxyaha ayaa ka dhaca wadada xiriirisa Afgooye iyo Muqdisho oo dib u dhis casri ah lagu sameynayo. ciidanka dawladda ayaan la soo sheegay in halkaasi ay ka biloobeen howlgal ay ku baadigoobayaan dadkii ka dambeeyay qaraxaasi. howlgalka ay sameeyeen ayaa la sheegay inaysan wax natiijo aysan ka soo bixin. ma jiro koox ilaa iyo haatan dusha saaratay mas'uuliyadda falkaasi, balse inta badan weerarada noocan ah waxaa dusha u rita xoogaga hubeysan ee Al-Shabaab. xalay fiidnimadii ayay ahayd markii hal qof uu ku dhintay 3 kalena ay ku dhaawacmeen qarax meeno oo gaari ay wateen booliiska sida gaarka u tababaran lagula eegtay isgooska kiiloomitir 4 ee Muqdisho. gaariga lala beegsaday qaraxa waxa uu ahaa nooca aan xabadu karin. dadka waxyeelada ka soo gaartay waxay saarnaayeen mooto bajaajyo. toddobaadkii hore ku dhawaad 15 qof ayaa lagu dilay weerar qarax ku bilowday oo Al-Shabaab ay ku qaadeen ay gudahana u galeen Hotel Africa oo ku yaala wadada kiiloomitir 4 ee wadada aada garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde. ciidamadii hore ee Ahlus Sunna ayaa la wareegay degmada Matabaan iyadoo dhaqdhaqaaqyo ciidan ay halkaasi ka jiraan. waxaa warkaasi noo haya Maxamed Cabdiraxmaan. wararka laga helaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in saakay ciidamadii hore ee Ahlus Sunna wal Jameeca ee la qarameeyay ay la wareegeen guud ahaan gacan ku haynta degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. ciidamada oo wata gaadiidka dagaalka kana tirsanaa qaybta 12aad ee xoogga dalka ayaa isku fidiyay magaalada iyaga oo ka bilaabay dhaqdhaqaaqyo cusub. sidoo kale wararka ayaa sheegaya in ciidamadu ay qabsadeen baraha koontaroolada ee laga soo gala magaalada Matabaan iyo saldhigga booliiska magaaladaasi oo muddooyinkii la soo dhaafay ay ku sugnaayeen ciidamada militariga ee dawladda federaalka Soomaaliya. ilaa iyo hadda lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysay arrintaasi, balse wararka qaar ayaa tibaaxaya in ciidamadii hore ee Ahlus Sunna wal Jameeca ee la qarameeyay ay isku dhaceen saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. xaaladda ayaa haatan ah mid kacsan, waxaana dadka deegaanku ay cabsi ay ka muujinayaan iska hor imaad ka dhaca degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. weli ma jirto wax wara oo haatan ka soo baxay taliska ciidanka qaybtooda 12aad ee xoogga dalka oo ay uga hadlayaan ciidamada la qarameeyay ee horay uga tirsanaa maamulkii Ahlus Sunna wal Jameeca ee la qarameeyay ee ciidamada dawladda Soomaaliya oo la wareegay degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. madaxweyne Farmaajo ayaa taageeray dib u doorashada Muuse Faki oo ah gudoomiyihii Midowga Afrika. waxaa warkaasi noo haya Cabdiqaadir Jakarta. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu hambaliyay gudoomiyaha ururka Midowga Afrika Muuse Faki iyo ku-xigeenkiisa oo dib loogu doortay hoggaanka Midowga Afrika. war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweynaha uu adkeeyay muhiimadda ay leedahay in hogaamiyaasha qaaradda ay si wadajir ah u shaqeeyaan ugana shaqeeyaan qorshaha reer qaaradeed ee ku aadan ilaalinta nabadda, ka hortagga colaadaha, hirgelinta yoolka horumarka waara ee qaaradda, la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada iyo saboolnimada. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xusay in dowladda federaalka Soomaaliya ay sii xoojinayso doorka ay ka qaadanayso adkeynta nabadda geeska Afrika, xasiloonida, horumarinta dhaqaalaha iyo xiriirka iskaashi ee ku dhisan wax wada qabsi iyo daris wanaag. ugu dambeyn madaxweyne Farmaajo ayaa ku bogaadiyay gudoomiye Muuse Faki doorka uu ka qaatay dadaalada ciribtirka saboolnimada iyo xagjirnimada oo caqabad ku ah horumarka shucuubta qaaradda Afrika. waxa uuna sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay si dhow iyo si dheerba ula shaqeyn doonto gudoomiyaha Midowga Afrika Muuse Faki oo mar kale xilkaas loo doortay ayaa hogaamin doona, waxaana la sheegay inuu door wacan ka qaadan doono arrimaha ku saabsan xaaladaha ka jira ha aadan kuwa saboolnimo iyo kuwa colaadeed qaar ka mid ah wadamada qaaradda Afrika. muddaxileedka madaxweyne Farmaajo ayaa saacado ay ka harsan yihiin xilli wali uu taagan yahay khilaafka
hareeyay doorashada 2021. waxaa weli taagan khilaafka doorashada 2021 aan wax xal ah laga keenin iyadoo xilhaynta madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ay ka harsan tahay saacado uun kaliya balse meelmarinta doorashooyinka oo ahaa qodobkii ugu muhiimsanaa oo inta badan mas-uuliyiinta dowladdu ay ku howlanaayeen si ay uga miro dhaliyaan hirgelinteeda aan weli u suurtoobin waqtigii loogu talagalana uu dhaafay wax soo dabcid ah oo mucaarad iyo muxaafad ahna aysan muuqan nin walibana uu ku doodayo in isagu uu saxan yahay. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo 4 sano ee la siiyay ayaa kusoo idlaatay khilaaf aan kala joogsi lahayn iyo shirar aan jirin wax ka soo naasacadaaday iyada oo dhowaan shirkii toddobaadkan gudihiisa dowladda Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada ay ku yeesheen magaalada Dhuusamareeb uu kusoo idlaaday natiijo la'aan iyo in lagu kala tago taas oo saamileeda siyaasadeed iyo bulshada rajadii ay ka qabeen in la xaliyo khilaafka dhanka doorashada ay noqotay mid geed korkiisa fuushay. madaxweynaha Soomaaliya oo wax ka yar 24 saacadood ay xilhayntiisu ka dhiman tahay ayaa mar uu ka hadlayay doorashada Soomaaliya waxa uu sheegay in baarlamaanka waqtigoodu uu dhamaaday balse waajibaadkooda qaran ay yihiin kuwo weli gudanaya. waxaana maamulada Puntland iyo Jubbaland ku eedeeyay in ay hor istaageen wax walba oo sahli kara in dalka ay ka dhacaan doorashooyin. walaalayaal annagu diyaar waxaan nahay doorasho aasaaskeedu yahay 17 September waxaa nooga baxay waqti aad u fara badan inkastoo aysan dhici doonin firaaq dastuuri aysan dhici doonin idinku naftigiina inaad la hadli kartaan waa lehen oo aad ku qancin kartaan 17 September heshiiskii ahaa in dib loogu noqdo oo laga mira keeno ama laga mira dhaliyo. dhinaca kale madaxweynayaasha shanta ah maamul goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle, Jubbaland, Puntland, Koonfur Galbeed ayaa dhankooda waxa ay magaalada Dhuusamareeb ku yeesheen shir iyagoo weli halkaasi ku sugan iyagoona shirkaasi kaga hadlayay walaaca ay ka qabaan xaaladda dalka uu marayo. musharaxiinta mucaaradka ayaa iyana dhankooda waxay ka walaacsan yihiin waxa uu dalka ku dambeyn doono marka la gaaro 8 Febraayo oo ku beegan maalinta berita ah. laakiin tan waxa laga hadlayaa waxay tahay yaa maanta leh awood sharci oo mataqaana oo muddo kordhin sameey kara waxa kaliya marka waxa laga hadlayo waa mataqaana ayaduhu intay shuruucdooda ku taagan yihiin oo ay mandate ka haystaan go'aamada ay gaaraan waa sharci laakiin markii mandate ku dhamaado kadib aniga waa la joogi jiray anigana waa iska joogaa waxay leedahay in sharci noqonin. waxgaradka iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa iyana ka deerinaya in go'aanada iyo talada dalka uu faraha u galo dawlada shisheeye iyo beesha caalamka. waxa weeye meesha waxa muuqata faragelin shisheeye iyo ajnabi inuu waxaas yarka wax ka raadinayo oo aan waxba ahayn marka ajnabi markasta in loo hogaansamo masaalixdiisa loo hogaansamo danihiisa loo hogaansamo ninka siyaasiga Soomaaliga ee hogaamiyaha oo markasta eego hirgelinta masaalixda ajnabiga wax maaragtay ummadan. haddaba maxaa la filan karaa haddii la gaaro 8 Febraayo oo ku beegan maalinta berita ah iyada oo saacado yar uun ka harsan tahay xilhaynta madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. taliska qaybta booliiska ee gobolka Nugaal ayaa howlgallo ay sameeyeen kusoo xirxiray bajaajyo iyo waliba ganacsato kale kuwa oo diiday qaadashada lacagta shilinka Soomaaliga. waxa warkaasi noo faahfaahinaya Cali Xasan Cali. taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal Maxamed Aadan ayaa sheegay in howlgal ay sameeyeen ay kusoo qabteen darawaliin bajaaj iyo ganacsato ka hor yimid qaadashada lacagta shilin Soomaaliga kuwaas oo uu tilmaamay inay jabiyeen awaamiirtii madaxda Puntland ee isticmaalka shilin Soomaaliga. waxa uu sheegay in darawaliintan iyo ganacsatadaba ay usoo qabteen inay sharciga marsiyaan maadaama ay jabiyeen awaamiirta madaxda u sareysa maamulkaasi taas oo dhalin karta sicir bare hor leh. waxa uu intaa ku daray in darawaliintan ee dadka shacabka ah ee raacaya bajaajta ay weydiinayeen lacagta doolarka ah taasna ay keentay in la soo xiro. taliyaha ayaa waxa uu sheegay inay kulan la qaateen guddi ay samaysteen bajaajleyda eena isku afgarteen inay isticmaalaan shilin Soomaaliga oo aan shacabka la weydiin doolar. dhammaantiin waxa way bajaajta waxa loo soo qabtay waxay ka hor yimaadeen lacagtii kaashka ahayd inay qaataan markii ay dadku adeegsanayaan oo adeegyada iyo caruuraha isgoolka ay fulaan bay waxay weydiinayaan doolar marka waxaa loo soo qabtay inay sharciga la waafajiyo
oo ay qaataan lacagta kaashka wayna ogolaadeen. hadda waa dhammaysanay wixii dhammaan nidaam iyo si wixii laga rabay waajibana waa la faray insha Allah wayna fulinayaan. waxaan isku afgarnay 3 qodob oo kala ah inay lacagta kaashka qaataan. waxaan loo asdeeyay 8,000 oo ku salaysan 2 inay qaataan halkii koorso. lambar 2 waxaan isku afgarnay wadada weyn oo main roadka ah oo aad maartay u mashquulsan oo aysan jaanis ka heli karin inaysan isticmaalin oo aysan ka shaqaysan ama ku baakin garaysan. lambar 3 waxaan isku afgarnay inay dawladda hoose cashuuraha ay ku leedahay ay si nidaam loo guud ahaan ay u bixiyaan oo ay si muwaadiniinta cashuurta isaga bixiyaan oo ay la xiriiraan xafiiska dawladda hoose cashuuraha qaadaan. waa awal way jirtay ma istaagtay laakiin waa la xaliyay. kaalimaha shidaalka iyo bakhaarada cuntada lacagta way qaadanayaan. weliba bakhaaradu waa kuwa kaliya oo aan hubo inay lacagta qaadanayaan. weliba raydka ay ahayd u qiimeynayaan ciddii badeecad gadanaysa 40 halkii dooro 42. bakhaarada cuntadu aad baan ugu mahad celinayaa sida ay u soo dhaweeyeen go'aamadii ay guddigu soo saareen. dawladduna ay qaybta ka ahayd. sidoo kale waxa weeye kaalimadu kuwa waaweyn Puntland Barham iyo Haas iyaguna waxa weeye waxay ku jiraan heshiiska ah in lacagta la socodsiiyo wayna ogol yihiin. kaalimo yaryar oo meel luqluq iska jira way ka cabanayaan iyagana insha Allah qaybna way xiran tahay qaybna waa loo yeeri doonaa. go'aan sida bajaajlada loola gaaro kala loo gaariyo cid lacagta kaashka diidi kartaan ma jirto cidda doonto ahaatee. faahfaahinna ayaa waxay kasoo baxayaan koox hubeysan oo toogasho ku dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya. faahfaahinna dheeri ah ayaa waxa ay kasoo baxaysaa toogasho ay koox hubeysan maanta ka geysteen gudaha degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. dilka oo ahaa mid qorsheysan ayaa ka dhacay jidcadaha mara dhabarka dambe ee suuqa weyn gaar ahaan dhanka xaafada Aargada ee sida ay inoo xaqiijiyeen goobjoogayaal. wararka ayaa sheegaya in askariga oo marayay wadada dhinaceeda ay weerar gaadma ah kusoo qaadeen rag ku hubeysan bastoolado waxaana ay rasaasta ay ka haleeshay qeybaha sare ee jirka taa oo sababtay in isla goobta uu ku geeriyoodo marxuumka. sidoo kale waxaa meesha ay wax ka dhaceen gaari ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Soomaaliya oo meydka ka qaaday halkaasi kadibna sameeyay baaritaano kooban. xaaladda goobta uu dilka ka dhacay ayaana weli kacsan waxaana laga maqlayay rasaas ay ridayeen ciidamada ammaanka iyada oo muddo kooban uu hakad galay dhaqdhaqaaqa iyo isku socodka maamulka degmada Wadajir iyo weliba saraakiisha ammaanka dowladda Soomaaliya weli kama aysan hadlin dilka qorsheysan ee loo geystay askarigaasi. maalmihii ugu dambeeyana ayaa waxaa magaalada Muqdisho oo dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed ay ka socdaan ka dhacayay falal amni darro sida dilal iyo qaraxyo.